ma dalkan ku tacabnay muddo badan ku daalay u dagaalameynay isagoo la doorsaday dib u soo xoreynay duhur calanka saarnay duca lagu yeeglayaan dheeldheel ku duminaa ma taa ka dirnaha dacwad kalena watani dadab gacan libaax iyo ragga duurka galayow ma dagaal sokeeyaa u diyaar garowdeen ma in la istuqeeyo dagaalkeenu qiiqa dayarta u hubayseen ma inay duriyadii kala daama noqoto dib u saaqinaaba soddonkii sane ee lasoo dhaafay waxay jamhuuriyaddani Somaliland ku naaloonaysay nabad iyo aamin buuxa way kaga duwaneyd dhigeeda iyo weliba dalalka kale ee qaaradani Afrika ku yaala ku hareeraysan hase yeeshee waxa ay cagaha la gashay xasaradaha aloosnaa muddo dheer isla mar ahaantaasina qaatay waqti xasaradahani ayaa ka dhashay isla mar ahaantaasina ka kacay kadib markii xukuumadda iyo weliba xisbiyada mucaaradka Somaliland ay isku maandhaafeen way isku afdhaafeen doorashadii madaxtooyada Somaliland way mucaaradku rabeen inay dhacdo 13 November sanadkii hore ee 2022 hase yeeshee markii intaasi laga soo gudbay waxa kale oo dhacay mudaharaadyo gilgili guud ahaanba gobolada waaweyn ee jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan gobolada bariga Somaliland halkaasi oo mudaharaad hor leh iyo weliba isku dhac uu ka bilaabmay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wixii intaasi ka dambeeyeen waxa sidoo kale dhacay mudaharaadyo tiro badan taasi ay galaafteen nafo badan oo kamid ah shacabka jamhuuriyadda Somaliland oo waxba galabsan isla mar ahaantaasina isqabqabsiga siyaasigu ay sababtay inay nafahooda waayaan wixii intaasi ka dambeeyay magaala madaxda gobolka Togdheer ee Burco waxa maanta ka dhacay mudaharaad baaxad weyn leh isla mar ahaantaasina ay dhigayeen kumanaan kamid ah shacabka magaaladaasi ku dhaqan waxaana halkaasi ay ku soo bandhigeen mudaharaad ballaadhan shacabka ayaa waxay madaxa ku xidhnaayeen weer cas waxaanay dhaliileen xukuumadda haatan joogta magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa waxay ahayd halkii lagaga dhawaaqay xornimada iyo gooni sutaaga jamhuuriyadda Somaliland 18 May sanadkii 1991 sidoo oo kale magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa iyadana waxa ka dhacay mudaharaado rabshado wata sidoo oo kale waxa maanta dhacay mudaharaad isaga hor yimaadeen qaar ka mid ah ciidamada amniga iyo jabhadda degan buurtaasi gacan libaax taliyaha ciidamada bilayska jamhuuriyadda Somaliland General Dabagale ayaa amar ku bixiyay isla mar ahaantaasina siiyay in ciidamadu ay difaacaan dalkooda iyo naftooda waa sida uu hadalka u dhigay generaalku yahay sidoo oo kale musharaxa xisbiga mucaaradka ee waddan Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa ugu baaqay bulshada reer Somaliland oo hadlay in ay nabadda qaataan waxaana sidoo kale uu sheegay inaanu marnaba rabin kursi dhiig iyo weliba dad ay ku dhintaan uu ku fadhiisto waa sida uu sheegay musharaxu wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ayaa jabhadaasi degan buurta gacan libaax ku eedeeyay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro isku dhacyadaasi markii laga yimaado ciidamada bilayska jamhuuriyadda Somaliland oo uu hadlay generaalka guud ee ciidamadaasi ayaa waxa uu sheegay inay 9 askari ay ku dhinteen halka bar kalena ku dhaawacmeen